Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdullah. Halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay ilbaxnimadii burburtay ee Maya. Ilbaxnimo waa xadaarad iyo waayaheeda. Duni kasta iyo bulshooyinka ku nooli waxay leeyihiin xadaarad iyo ilbaxnimo u gaar ah oo ay ku tanaadeen. Ilbaxnimooyinkaasi qaarkood way tisqaadeen, qaarkoodna way burbureen oo baaba'een. Kuwaasi oo tisqaaday badhankooda waxaa ka dhashay dowladaha iyo dalalka reer galbeedka. Maanta la odhan karo ilbaxnimo iyo haldoornimo waa loo daayay. Haddaba maanta waxaynu isweydiin doonaa, ilbaxnimooy maxaa tahay? Ilbaxnimada ma burburtaa? Ma jiraan ilbaxnimooyin burburay? Waa su'aalahaasi iyo qaar kale oo badan aynu muuqaalka tan uga jawaabi doono. Inkastoo oo ilbaxnimooyinka dunida soo maray ee haddana galbaday ay badan yihiin, bal waxaynu ku bilaabi doonaa ilbaxnimadii Maya la odhan jiray ee ka jiri jirtay dhulka koonfur bari Mexico iyo bartamaha waqooyiga Ameerika. Ilbaxnimadii Maya waxyaabaha la odhan karo way burburiyeen waxaa weeye xaalado cimilo dara ah oo soo wajahday. Abaaro ba'an oo lagu riiqday ayaa ku dhuftay, taasoo baabi'isay dhul daaqsimaadkoodii iyo midhahoodiiba. Abaarahaasi waxay dileen dad badan oo ku nool magaalooyinkoodii. Ugu dambeyn, biyihii iyo baadkii ayaa ka go'ay oo way nabad guureen. Sahmiyaal fara badan oo reer galbeed ah ayaa baadhay dhulkii ay ku noolaayeen dadkani. Waxay la magaageen sida farshaxanimada leh ee dadkani dhagxaanta u qori jireen, kadibna muuqaalo farsamaysan uga samayn jireen. Meelo tiro badan ayaa lagaga waramay ilbaxnimadii burburtay ee Maya. Waxaa ka mid ahaa janaalka taariikhda ka faalowda ee History Channel. Ilbaxnimadan oo keliyaata ma aha kuwa burburay ee waa wax sidoo kale jiray ilbaxnimooyin horeeyay sida Biyombolos, Harapaniski iyo Mesopotamiyadii hore. Dhammaantooda ilbaxnimooyinkaasi waxaa la isku raacay inay burbureen sababo cimilo daro awgeed. Dhibaatooyinkaasoo badan waxaa ka mid ahaa dhulgariiryo tiro beelay, macluul, masiibooyin iyo tsunami. Intaas kadib, baaritaano badan oo la sameeyey, siiba baadhitaano ay sameeyeen culimada ku xeel dheer archaeology-ga, raadadkii ay ka tageen ummadihii hore, waxaa lagu ogaaday sida uu sheegay aqoon-yahanka cilmiga archaeology-ga Glenn Schwartz inay dowladihii burburtay ay ku galago'day dowlado yaryar iyo magaalowgii oo ku yaraaday magaalada. Dowladihii dhexe oo meesha ka baxday iyo dhaqaalihii oo gebi ahaanba burburay. Sida ay qabaan qaar ka mid ah qoraayada, waxay rumaysan yihiin in burburka ummadda uu ka bilaabmayo burbur ku dhaca ummadda laftigeeda, halka qaarna ay rumaysan yihiin in tirada dadka oo hoos u dhacda sababi karto burbur. Laakiin tani ma aha sababooyin loo aaneyn karo burbur. Magaalooyin badan ayaa sababo dirir iyaga dhex martay awgeed ku burburay. Qabiiladii wada degnaana dhulkaasi way isxasuuqeen. Konsaaban iyo magaalooyin kaleba way burbureen. Ugu dambeyn, magaaladii waxaa qabsaday boqorkii Isbaanishka 1697. Gacantoodana ayayna ku burburtay boqortooyadii Maya. Boqortooyadii Isbaanishka ayaa lugta marisay 1697. Dhammaan alaabtii iyo dhaxalkii boqortooyadii Maya waxay gubeen boqolaal iyo boqolaal buug iyo madxaf oo ay lahaayeen dadkii reer Maya. 4 buug oo keliyaata ayaa ka hadhay dhiganayaashii yaalay madxafka
Maya. Dadkii reer Maya ee qaxay waxay imika degan yihiin dhulweynaha Maraykanka oo ilaa haatan ay degan yihiin. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida. Assalaamu calaykum.